jilaalkii adkaa baa laga soo baxay roobabkii guga ayaa curtay meel kastana waa xareed webiga baa biyo keenay oo beeralaydii baana u riyaaqay tacab dhul ballaaran ayaana loo dareeray saamayntii webigana meesha ayay ka baxday bilo kadib suuqa ayaa khudaar la circiraya waa jowhar waana barnaamijka barbaarta iyo beeraha oo dhammaadka gu'i la soo dhaafay gaaray magaalada jowhar muddo 7 ah oo aanu ku laba cirgaduusanay magaalo madaxda gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan u kuurgalnay dhinac walba oo beeraha ka khuseeya gobolkan sida beeralayda iyo beerahooda suuqyada aroor waliba la soo dhoobo dalagyada ka yimaada beeraha jaamacadaha gobolka uu leeyahay ee laga barashado cilmiga beeraha iyo warshadii uu caanka ku ahaa gobolkan berisamaadkii ee qasabka la warshadeeyay laga soo saari jiray sokorta arrimahaas oo idil haddii aanu ku horeyno jowhar iyo juqraafi ahaan magaalada jowhar waxay caasimada dalka ee muqdisho waqooyi uga beegan tahay 90 kilomitir waxaa bartamaha magaalada maralaamiga isku xiran muqdisho ilaa iyo gobolada waqooyi ee dalka waxaa sidoo kale magaalada dhex mara webiga Shabeelle oo badiid beeralayda gobolka ka caawiya wax soo saarka sanadka oo idil meelihii aan ku horeynay ee aan gaarnay waxaa ka mid ahaa jaamacadda Balaasma qaybteeda jowhar oo kulliyadaha wax laga barto ay ka mid tahay midda beeraha waxaana isla jaamacadda igu waramay beeryaqaan Cumar Cismaan Maxamed oo ka mid ah ardada sanadkan ka qalin jebinaya jaamacadda Balaasma gaar ahaan kulliyadda beeraha waxaan weydiiyay inuu warbixin kooban naga siiyo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo muhiimadda xagga beeraha ee uu ku fadhiyo waxaana uu yiri gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar waa gobol aad iyo aad ku caan baxay khudaarta iyo dhammaan noocyada kala duwan ee dalagga bini'aadanka markiisa uu ku nool yahay wali waxaan dhihi karnaa dhammaan gobolada dalka Soomaaliya waa gobolka ugu caansan xagga wax soo saarka marka la hadlayo beeraha oo markiisa wuxuu leeyahay webi ballaaran oo loo yaqaan webiga Shabeelle kaasoo gacan ballaaran ka geysto wax soo saarka beeraha Shabeellaha Dhexe waa gobol lagu beerto lagana soo saaro badi dalagyada ka baxa dalka sida galeyda, masagada, digirta, salbukada, maxoga, waanbaha, bataatada, sisinta, lowska, geed miroodada kala duwan, khudaar nooc waliba leh iyo bariiska oo dhawaanahan uu caan ku noqday gobolka sida uu sheegayo Cabdi Aadan Qarafay oo ah beeraley muddo dheer ku soo jiray tacbashada dalagyada kala duwan ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gobolka Jowhar waxa caadi ku yahay koow horta bariiska laba dalagyada kala waa laakiin bariiska gobolka uu soo saaro inta badan waxaa laga fadilaa kan dibadda ayuu yiri Cabdi Aadan Qarafay oo tayada codkiisa aan wanaagsanayn sababta markii aan weydiiyayna waxa uu ii sheegay in qiimaha kan dibadda laga keeno uu ka jaban yahay midka ay soo saaraan sidaana aysan dadku ugu badnayn iibsashadiisa gu'i la soo dhaafay waxa uu ahaa gu' barwaaqaysan oo dad iyo dunyaba wixii dhashay ay hanaqaad noqdeen jiha kasta waa doog iyo cagaar xoolo ayaa daaqaya waana barqadharag dadka reer Jowhar iyaga oo milicsanaya barwaaqada uu ayba siiyay iyo sida wanaagsan ay ula soo bixi jireen dagaaladii sokeeye ka hor waxay oran jireen adduunyo Jowhar ka joog aakhirana janno ka joog heer wuxuu gaaray lagu mahmaaho dadkii bersmaadkii hore markay ka hadlayeen Jowhar barwaaqadiisa inay yiraahdaan adduunyo Jowhar ka joog aakhirana janno ka jir insha Allah dalagyo badan ayaa gu'i la soo dhaafay u beernaa beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana calanka u siday galeyda oo ah dalag ahmiyad weyn ugu fadhiya bulshada Soomaaliyeed Cismaan Geedi waa mid ka mid ah beeralayda Shabeellaha Dhexe muddo 15 sano ah ayuu abuuranayay ciidda beertiisa ayaan ku booqanay oo markaa galey u bixisay ay sabuulka saaratay waxaan weydiiyay muddada 15 sano ah wixii uu soo beertay waxa uuna ku jawaabay qarawa tabcay galey waa tabcay nyaanya waa tabcay sisin waa tabcay masago waa tabcay waxaan tabcay ma
dhanka roobabka ee gobolku uu helo waa gu iyo dayr, laakiin qaybo badan oo ka mid ah Shabeellaha Dhexe waxaa u dheer roobabka xagaayada kuwaas oo gacan ka geysta wax soo saarka beeralayda yaryar ee dhul roobaadka iyo xitaa kuwa adeegsada waraabka oo ay u baaqato kharashaadka kaga bixi lahaa waraabka qayb ahaan. beeralayda Jowhar waxay kaga libaysteen waraab aan matoor loo kicin, taas oo ka caawisay kana baajisay kharashaad badan oo kaga bixi lahaa dayactirka matoorada iyo weliba lacagihii kaga bixi lahaa shidaalka. waa kan Cismaan Geedi oo ka hadlaya waraabka shidaal la'aanta ah ee ay kaga libaysteen. mar waa jiraan laakiin badanaa waa ceemanaa anaga matoor waa ka ceemanaa baryahay moogiye webigu biyada matoor heex loo dhimaado caadi waraab. wax soo saar aakhirka natiijo fiican dhala waxaa mararka qaar ka hor yimaada caqabado badan sida dhibaatooyin kaga yimaada xagga ciidda, cimilada oo xumaata, cudurrada iyo cayayaanada kuwaas oo dhammaanba wax u dhima tayada iyo tirada wax soo saarka. waxaa intaas usii raaca qofka beeralayda ah marka suuqa uu kala kulmo wixii uu ka filayay waxaan ahayn, taas oo mararka qaar u horseeda niyad jab ka eryi karta tacabka. waa kan mar kale Cismaan Geedi oo ka hadlaya sida uu la kaca kufay dalag uu beeray oo markii dambena suuq xumi ay ugu darsantay. qaraha macnaha markaan abuuray markaan falay beerta horta marka hore waa la falay moogtahay markaan beerta falay ka bacdi biyaan ku day markaan ku day ee biyi ka baxeen beerti waa makiinay waxaan ku dhigay wuxuu ahay qariyaan abuuray waa la gacan abuuraya markii qariya aan abuuray waxaa dhacday qariya inuu ii soo dhashay aboosta uu noqday waan falay okay uu ahay qaraha marka wuxuu sameeyay meeshii uu muro bilow oo ka ahay ee xogaa jirro malabisleera ay ku dhacday markay ku dhacday waa ka buufi waa kala tacaalay markaan ka buufi waxa dhacday haddana ka bacdi qarihii uu yimid oo soo bislaaday waxa dhacay suuq xumaad haddana suuq xumaadka haduu dhacay suuqii wax ka joogo way. waxaa kaloo meelihii aan gaarnay ka mid ahaa suuqa khudaarta oo markaa kasoo toosay hurdo bilo uu ku jiray kadib markii uu guray oo uu qalalay webiga Shabeelle, taasoo saameyntiisa ay wada taabatay beeralayda iyo beerahooda, suuqyada iyo macaamiisha ka adeegta intaba. waxaana arrintaasi saameynteeda wax ka qorayay ardada kuliyadda beeraha ee jaamacadda Balaasma qaybteeda Jowhar. Cumar Cismaan Maxamed ardadaas ayuu qayb ka yahay. wallaahi webiga Shabeelle markii uu guray ama uu angegay dhibaato fara badan markiisa lagala kulmay dhibaatadaas oo keentay in dalagyada ay gubtaan khudaar badan. barnaamijyo kale ayaa inoogu laaban Jowhar oo aad kala socon doontaan barnaamijkan barbaarta iyo beeraha. waxaa idiin soo saaray idilana socodsiinaya Cabdishakuur Ibraahim Cabdi. tan iyo barnaamijkan kiisa xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafeynaa nabadgelyo iyo tasho oo tacbo. Inam ber balano ang kubahi bahni